haddii aan nahay bangiga Premier Bank waxaa maanta farxad weyn inoo ah oo sharaf inoo ah inaan u hambalyayno shirkadda Hormuud 20 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskeedii, taasoo macnaha caddayn u ah in private sector-ka Soomaaliyeed gaar ahaan isgaarsiinta ay guuleysteen oo muddo 20 sano ah khibrad Soomaaliyeed iyo maamul Soomaaliyeed iyo waayo aragnimo Soomaaliyeed iyo odaynimo Soomaaliyeed lagu soo waday oo professional ah. waxaana u rajaynayaa ay sii jiraan oo ay maamulka iyo ku sii dadaalaan sidii markaa loo sii qurxin lahaa hawl walba oo mustaqbal aad u wanaagsanna ay u gaari lahaayeen. dhanka kale markaan u soo laabto ka Premier Bank ahaan, shirkadda Hormuud waxaan leenahay wada shaqayn wanaagsan. xaqiiqatan waxaan aad iyo aad macnaha uga mahadcelinaynaa service-ka wanaagsan ayna siiyaan oo ay kamid yihiin kambaniyada ayna siiya service-ka khaasatan internet-ka iyo call center-ka iyo sidoo kale takhasuska isgaarsiineed taleefanada landline-ka iyo guud ahaan aan u isticmaalno xafiisyadana qaybaha kala duwan oo markaasi haddii la'aantiis xaqiiqatan aysan jiri lahayn kambani Soomaaliyeed oo shirkad ka hirgeliya dalka. waa mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta, kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid tahay, taasoo macnaha suuro gelinaysa in macnaha waddanka laga sameeyo shaqo abuur badan iyo howlo badan oo markaasi kambaniyadii ay isku xirmaan oo ay xiriir fiican ay samaystaan. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay 20 guurada ka soo wareegatay aasaaskii shirkadda Hormuud. waxaan leenahay hambalyo guuleysta ayaan leenahay. mustaqbal wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa insha Allah tacaala iyo horumar wacan oo aad service-ka inta hadda uu yahay iyo in ka badanba aan idinka sugayno.